oori la qabo oo kamarada aqal loogu xidho oo cawradeedii bannaanka la dhigo weli caalamka lagu maarag islaamnimadana lagu maarag soomaalina lagu maarag ciidagalaas laga arkay iyadoo la hadalhayay maalmihii ugu dambeeyay inay soo fadhiyeen odayaasha labada dhinac ee kasoo kala jeeda Safiya Tusmi iyo Cabdi Cajuun ayaa haddaba waxaa caasimadda Somaliland ee Hargeysa caawa shir jaraa'id ku qabtay qaar ka mid ah odayada Safiya Tusmo kuwaasi oo sheegay in odayadii beesha uu kasoo jeeday Cabdi Cajuun ay gabi ahaanba ka bixeen ballamihii ay wada lahaayeen labada dhinac waxaana ay ku eedeeyeen arrinkan inay la ogyihiin odayaashiisu waa sida ay hadalka u dhigeen isla markaasina ay ku raacsiin dhaqankani foosha xun ee uu ku sameeyay Safiya Tusmo iyagoona digniin adag u diray beesha uu kasoo jeeday Cabdi Cajuun waxay hadaladoodu u dhignaayeen sidan bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo ah aqal jaamac nuur cabdi waxaan halkan aan ka sheegayaa ama shirka jaraa'id baa u qabanay dhacdadii gabadhii Safiya Tusmo ku dhacday oo gilgishay Soomaali idilkeedba gabadhaasi beesha ay ka dhalatay baan annagoo ah Bahabar Cabdalla Makaahila dhacdadaasi markay dhacday booramaan joognay waan aragnay waan soo soconnay Hargeysa nimid reerkii ninka oo ka dhashay ayaa ninkii soo dhaweeya waa ciidagale ani Yoonis iyo ciidagale weeyii waa gudoomiyihii waxaan helay garxajis ninka Cabdi Guuleed la yiraahdo aqladii wuxuu noo keenay garxajis oo dhan waan wada hadalnay gabadhaas maankeegii iyo maalkeegii baa la isku daray dhacdo fool xun oo Soomaali weli ka dhexdhicin ayaa lagu sameeyay oori la qabo oo kamarada aqal loogu xidho oo cawradeedii bannaanka la dhigo weli caalamka lagu maarag islaamnimadana lagu maarag soomaalina lagu maarag ciidagalaas laga arkay arrintii caynkaas ahayd waan ka wada hadalnay waxaan nidhi gabadhaas laba qodob baan soo jeedin waxaan nidhi gabadhaas halkaad ka ceebaysan kaalay ka raali geliya magteediina halkaas soo dhiga waxay noogu jawaabeen inankayagu wuxuu nayidhi oo duqeydii dhanada ciidagale waxaa ma qabo buu nagu yidhi ee aan isku noqday walaalahay oo ballan ii qabta way nala meeraystay 3 maalmood bay qabsadeen khamiistii shalay ku ekay khamiistii shalayna kolkay mataqaanaa arrinkii kiira soo dhuuxeen inay waxaan ay qabaan ogaadeen hawada ka baxeen oo waa la jabay way jareen sidaa darteed annagoo ah beeshii duqeydii Cabdalla Makaahila waxaan garanay in arrintanba ka yar ay mataqaanaa odayadu arrintan ka dambeeyaan waxaan uu sameeyay dhaqankan xun inay iyagu raacsan yihiinba oo u dhan yihiinba ayaan mataqaanaa ogaanay sidaa darteed gabadha mataqaanaa Safiya Tusmo inanka waxaan sameeyay iyo hablaha ciidagalena farxi maayaan inanta Tusmo iyo hablaha Makaahila la dhashayna oo imaayaan siday kuwaasi u ooyeen hablaha Makaahila iyo gabadha Tusmo ay hablaha ciidagale iyo inanka hernumo u ooyi doonaan haddii mataqaanaa si Soomaali maanta way arrintan way wada gaadhay haddii sida ugu dhaqsiyaha badan arrintan loo gaari waayana dib weyn baa ka dambeyn bismillaahir rahmaanir rahiim اللهم صل على محمد وأنا أقل بار عبد الله قوة بار عبد الله متقنا وضياش هو وين كميدا ضال وين وحن كور بحنايا دad عادي كود عادي كبدا صوماليات بار عبد الله تصمو ولاي رادو تاسو بريها ما كنت أرنكين markuu fadeexada iyo ceebta miiriyaha ee islaamnimada iyo dhaqanka Soomaaliyeed waxa ku jiraan ku aragnay waxa raasinay cid wax ka dambeysay waxay noqotay nin qabay oo ciidagala ninkii iyo jilibkoodii iyo annagoo Bahabar Cabdalla waxaan isku gabnaa Hargeysa weeygiyo
waxay fariisanay guri waxa niri mataqaanaa wabalta garta gurbaa ka horeysay waxay yiraahdaan gur maanta ku wada hadal waa ka yeelay waan wada hadalnay waxay yiraahdeen nimanaa mataqaanaa balana siiya khamiistii ma siiyo waan ka yeelay khamiis shalay bay ahayd boorba ka soo kacatinay halkii baan nimankii halkii baas noo qabtay odayaasha hay aqalintaas banadaha halkii may iban waxa ka marxaatiyaha oo kamid aha Sultan Saleebaan sub cadagdan kala yiraahdo dhan anu ma garanay magacaas cadagdan kala yiraahdo xaq kala hogaaminayay cadagde waxa way hawshii sida uu soo agaasimay anaguna aan markaa doonayna inaan gabadhii ka wada hadalno oo dhaxayaan ku wada hadalno arrinkii uu nagu deeriyay maanta oo shalay oo ahayd khamiis waxaan maanta halkan ka sheegayaa saddex qodob horta cadagda waxaan leeyahay nibba habeen guuro waxa ka qori habeen kale waraawo mooday waagu waa u bari qori wuxuu yiri waxmaday waraawo qori xalay qori waxa la xumaday waraago waxaan qotay qori waxa loo noqon buuro habeena ka inta saanna ciida galo waxaan leeyahay ciida galo hadii faras baa la ninkii dibeysa ka degay meel ka degu waay faras dibeysa ka degay meel ka degu waay makaasa aqal inni'a makaasa aqal inni'a qaas galo leeyahay dhaqanka Soomaaliyeed waxaan leeyahay Soomaaliland waxaan leeyahay arrinkaasi arrin Soomaalida ku fiican ma ahay diinta islaamka ku fiican ma ahay arrinka gabdhahana waa ogtihiin haddii gabadhooda in la isku diro waa ogtihiin waa in laga jawaabo Soomaaliland dhaqanka Soomaaliyeed ma leeyahay waxaan leeyahay ciida galo haddaas degdeg arrinka uga bixin weydo boolasi uga bixin weydo raali gelin ka bixin weydo waxaan yeelanaga inuu taalo Soomaaliland soo sheego salaam alaykum bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu Cabdullaahi Faare aniga ku hadlaya magaca caylada Safeetismo waxaan marka hore u mahad celinayaa dhammaan ummadii Soomaaliyeed ee ka dareencisay dhacdadii foosha xun lahayd ee lagu la kacay fanaanada Safeetismo sida heel iyo hoob isla garab taagay arrintaana aad uga xumaaday aad baan ugu mahad celinayaa marka labaad sida wadaba sheegeen ciidagal arrintan inkastoo aan u dhaneyn nimankii gudida ahayna hor yimid arrintan nagala hadlayay si dhaqan ah Soomaalinimo leh hablaha iyo arrintooda lagu arki jiray runtii uga ma hadleen si aan anshaxa ku wanaagsaneyn iyo nolol kulmeen nolol dhaqmeen ballantii ay qabteenna way ka baxeen dabeed halka markay taagan tahay waxaan u sheegaynaa Soomaali meel walba joogtaba inaan arrintan Safeetismo sida laga hadhayn dadkeega iyo Soomaali meel kasta taagan tahay ay arrintaasi si adag looga jawaabi doono meel kasta oo la gashana aan ka daba tagi doono ilaa xaqeedii iyo meel ka dhacadeedii iyo magacbiintii lagu sameeyay falkii foosha xumaa cidii geysatay ilaa ay raalgelin ka bixinayaan cadagulad la yiraahdo kuma oranin waa inaan gumeed eraqay fiicnayni waxaan idhi astaantii gubtiyo aynigii ma leh Shaafici Cishqi magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland